ظروف ذقبان كوكوري دريال هوينا مهلين دذا الأبنا معارض تلي حيدي تنقذا تدكانكم اللي ولا الوحان نوخيدا دربيقا بحيدة دعالكي وداير ومستقبلكي بريت iyo maantaba jiilkooda uma xuma balse waxa gagida maran dhigay waqtiga iyo waayaha waxa ay waayeen daryeelkii ay u baahnaayeen dad iyo dawlad intaba kamay helin garab istaag oo gidaarada ay dugsadaan habeenkii iyagoona quudka ka raadsada qashinka ay reeruhu qubaan markaad booqato jidadka waaweyn ee magaalooyinka dalka qaar waxaad la kulmaysaa caruur gabdho iyo wiilalba isugu jira oo gacanta ku wada haysta maandooriyayaal ay dantu biday inay noloshooda ku kafeeyaan in badan ayay kamaradaha warbaahinta ka soo muuqdeen iyagoo dalbanaya garab istaag caruurtani balse waxaa muuqata inaan dhig jalaq loo siin qayladhaantooda war masaakiinta dayacan waxay u baahan yihiin daryeel waxbarasho dalka kulley wuxuu qaban lahaa waxaa gabay daneeyayaasha u dooda xuquuqda aadanaha dastuurada u degsan dawladaha iyo maamulada dalalka ka jiraana xil iskama saarin balse taasi waxaa u dheer faquuq iyo nacaybka jirdilku weheliyo ee ay kala kulmaan bulshooyinka ladan ay ku dhex nool yihiin taasi oo ku kalifta inay noloshaba sii nacaan iyagoo ka sii fogaada arxankii ay u hayeen nolosha macaan dhibaatooyin aqbada ah ayaan la kulmi jiray maalin walba kuwa saaxiibadaya waxay la kulmi jireen nolosha oo cadaadisku ah oo iyo taxaddi u dheer ayuu wallahi walaal ku kulmi jireen waxa weeyaan duruufihii iyo kala duwanaa ee nolosha ah sida dhaxamaha sida hoteelada hambooyinka aan ka qaadanayna gumeysiga nagu haya iyo taxaddiga nagu haya soo ma fahmin sida saldiyada marka lagu xiro cid naga daba timaaday cid noo timaada oo ama cunno noo keenta habeeratin walaal ma jirto qaar baan mustaqbalkooda ka rajo dhigin oo dalbanaya in loo fidiyo daryeel iyo horumar nafsadeed waxa ay ku taamayaan mar'uun in ay wax noqdaan oo ay ka baxaan nolosha ciriiriga la jaanqaadida dunidu waa muhiimadooda koowaad balse waxa ay leeyihiin garab istaag cadaalad darro ayay tabanayaan caruurtani handora marbaan laha damiir togan baan laha inaan dadka caawiyo tigitoor noqdo waan jeclaa waxseen la dekamaya dantii waayahay xidhay